arkaysaa markaasi maalimaha guurka iyo xafladaha iyo farxadda in markaasi miisig weyn la daarto in heesa la shito oo ilaahay maalimahaasi la caasiyo maalimaha nicmadda ee la barwaaqaysan yahay la faraxsan yahay in miisig la daarto ilaahay waa u nacdalay arooskaaga miyaad ku soo dhaweyn oo asaas iyo gogol ooga dhigi naclad ilaahay ka fogow ayuhal cabd dab waxaa loo baahan walaalayaal guurkii in laga faham markaasi saxiixa oo waafaqsan kitaabka alle iyo sunnada nebiga sallallahu alayhi wasallam oo guurkaagii iyo zawaajkaagii waa ina cala ittibaaci sunna inaad nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam dariiqadiisa kaga dabadayatid waad aragteen maanta zawaajka iyo guurka iyo xafladaha la qabto waan wada aragna waan wada tagnaa sida u dhacaan ma sida sunnaha la oranayaa maanta may waxaad arkaysaa gabadhiyo la soo qaawiyay dhar cadcad loo soo xidhay ninkiyo markaasi suud iyo koostiin madow loo soo xidhay kadib maxaa ka dambeeya baagdamaariyaash baa gacanta la isku geliyaa nebi maxamed baa u gelin jiray caaisha mise khadiija baagdamaariyaash halkee laga arkay halkuu ka imid baagdamaariyaashka waana dhaqan gaalada nooga imid arinku sidaas maaha walaalayaal inaad tiraadid markaasi waan guursanayaa oo waxbaan waayi وفهم خلطان ويان وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم